shirkadda Nike oo Islaamka ku xadgudubtay. Waxaa dhacda badankeenuba in aynu wada isticmaalno shirkadda Nike dharka ay soo saarto, haddii noqoto kabo amase koofiyado. Kulligeen waynu wada jecelnahay oo waynu wada iibsanaa, iyagoo welibana qaali ah oo waynu isticmaalnaa. Haddaba, ma ogtahay xaqiiqada ku duugan shirkaddan? Ma ogtahay Nike in ay tahay mid necab Islaamka oo dhan? Sida oo kalena shirkadda Nike waxaa dhowr jeer lagu arkay in ay Islaamka meel kaga dhacayso. Weligaa maskaxdaada amase niyadaada ma ku soo dhacday nacaybka faraha badan leh ee ay Islaamka u qabto shirkadda Nike? Philip waa mulkiilaha iska leh shirkadda Nike. Waxaa dhacday in uu shirkadiisa u sameeyo xayeysiin oo uu leeyahay cidna joojin kartaa ma jirto amase cidna qaban karaysa anaga. xayeysiinta muuqaalka ahayd loo sameeyay shirkaddan ee ciwaankeeduna uu ahaa cidna joojin karaysa ma jirto, ayaa run ahaantii muuqaalka waxa ka soo dhex muuqday oo laga dhex arkay arrin cajiiba. Muuqaalkaas oo ah kan imika hortiina ka muuqda ayaa run ahaantii waxa ka xanaaqay Islaamkii oo dhan. Waxa ay ku fadeexaynayeen Islaamka oo ay welibana sharaftii kaga dhigayeen. Waxa muuqaalkaas imika hortiina ka muuqda laga dhex arkay waa xayeysiintii loo sameeyay shirkadda Nike ee gabadh muslimad ah oo asturan xijaabkeediina xidhan. Kadib marka dambena waxa ay ka dhigayeen qof kale oo wata calanka khaniisiinta. calankaas oo ah mid ay ku midoobeen dhammaanba khaniisiinta adduunku amase caalamku. Waa astaantooda u gaarka ah laguna garto calankan. Gabadhan asturan ee welibana xijaabkeedii xidhan ayay u bedeleen qof kale oo khaniis ah. Waxa ay ku xadgudbeen shirkadda Nike sharaftii iyo karaamadii Islaamka. Daawade, aan su'aal ku weydiiyey, adigaagan imika muuqaalkan daawanaya hadda kadib maxaa aad samayn doontaa? Ma iibsan doontaa dharka Nike amba alaabta Nike ay soo saarto? Arrinkanna sidee ayuu kula noqday? Fadlan commentiga noogu reeb fikirkaagu, waa noo muhiim. Haddaba, wa'ayo milkiilaha iska leh shirkaddan? qisada shirkadana halkee ayay ka bilowmatayna? Philip waa ninka iska leh shirkadda Nike. 1971 shirkaddani waxay ahayd mid faqiira amase wax lacaga may haysanin. Xitaa sida oo kale Philip markaas shirkaddan wax looga mabaysan lahaynba oo loogadan imika aad arkaysaan may lahayn waqtiga. Philip waqtigaas wuxuu ahaa nin faqiira, xitaa muu haysanin lacag uu shirkadiisa geliyo iyo welibana sidii loogu samayn lahaa. Waxa uu deydey jiray cid looga u samaysaa oo dhibaatada hortaagan ayaa waxay ahayd lacag muu haynin uu dadka siiyo loogada u samaynaya. Waxa uu isugu yeedhay dad fara badan isaga oo ka codsanaya in ay looga u sameeyaan shirkadiisan looga ugu sameeyaan iyo magac welibana. Kadibna wuxuu ku yidhi saacadiiba waxa aad ku shaqaynaysaan $2 oo keliya oo welibana $2 ay yihiin amaah. Isla markaaba lacagta gacanta laydinkama saarayo oo waan soo amaahanaya ayuu ku yidhi. Kadibna dadkii oo dhan ayaa la wada yaabayba oo cid ogolaatay mabay jirin oo qof kastaaba waa uu iskaga tegayay. Sababtoo ah lacagtuna way yar tahay welibana markaasay tahay amaah aanu isla markaba siinaynin. Arrinkaas marka ay ku dhacday waxa uu dareemay niyad jab fara badan oo run ahaantii ismuu dhiibin marnaba. Wuxuuna ku adkaystay in shirkaddan ay mar uun hirgeli doonto, noqon doontana mid adduunka iyo caalamkaba qabsata. Ugu dambayntii maalin maalmaha ka mida ayaa waxa dhacday gabadh la yidhaahdo Caroline ayaa u timid ogolaatayna in ay $2 ku shaqayso saacadii una samayso looga qurux badan. Gabadhii Caroline ayaa 17 saacadood kadib waxa ay la timi samaysayna loogadan ay shirkaddani imika caanka ku tahay ee Nike. Saxdan yar ee ay caanka ku noqotay ayay gabadhaasi samaysay. Run ahaantii waxa uu noqday Philip mid kuna farxay arrinkan iyo welibana loogadan quruxda badan leh ee ay gabadhu u samaysay. Kadib Philip gabadhii waxa uu u qoray check ah $34 oo keliya oo welibana ah lacag aanu gacanta ku siinin, aanay la bixi karaynina ilaa ay shirkaddu lacag ka helayso. Kadib 1983 shirkaddii Nike waxa ay noqotay shirkad dakhli badan soo gashay, lacag badanna yeelatay. Mulkiilihii shirkaddan waxa uu sameeyay gabadhii shirkaddan u samaysay ee welibana loogadan quruxda badan leh imikana caanka ay ku tahay. Waxa uu siiyey fargal dahab ah oo welibana ku sawiran loogada Nike. Sida oo kalena shirkaddii qayb ayay ka yeelatay oo lacag buu u geliyey, markastana lacag ayay helaysaa gabadhaasi. Waxa uu hadiyad uga dhigay fargalkii dahabka ahaa oo ku sawirantay welibana loogada Nike. Shirkaddiina lacag ayuu u geliyey oo shirkadda qayb ayay ka yeelanaysaa, markastana lacag ayay qaadanaysaa.
daawade waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan waa anigoo ah Nadira Saciid fadlan muuqaalkan haddii aad ka heshay ha ka ilaawin inaad like saarto soo kalena asxaabtaada u sheergaraysid adigoo la wadaagaya haddii aad naga daawanaysid dhanka YouTube-ka fadlan nagu soo biir subscribe-na saar channel-ka haddii aad naga daawanaysid dhanka Facebook page-kana follow-de page-kan haddii aad hore noola joogtayna soo dhawo walaalo mar kasta